madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug ayaa magaalada Gaalkacyo ku soo bandhigay kula looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed. Warkan waxa Gaalkacyo ka soo diray wariyahayaga Axmed Jaamac Caana Cadeeye. kulankani oo ahaa mid ay soo qaban qaabiyeen madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug ayaa loogu magac daray Samawade oo ah kulan loogu tala galay wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ee qarannimada wadaniyada iyo walaaltinimada. waxaana kulanka ka soo qayb galay dhalinyaro aqoon-yahano qurbo joog iyo maamulka degmada Gaalkacyo. Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ah gudoomiyaha golaha sare ee madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug oo furay kulanka ayaa faahfaahin ka bixiyay kulankani iyo ujeedada loo qabtay. waxa sharaf weyn noo ah inaan maanta halkaan kulankan isugu nimaano qiimaha weyn aad magaciisa la ku aragtiin aan ugu magac daray Samawade oo ah kulan looga hadlayo ama lagu xoojinayo wadajirka iyo walaalnimada ummadda Soomaaliyeed si gaar ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo ayagu qayb weyn bulshada ka ah markaan leeyahay si gaar ah dhalinyarada mujtamaca Soomaaliyeed dhalinyaradu 80% waa ka badan yihiin sidaa darteed ayaan u aragnay inay tahay muhiimad weyn in maaragtay la siiyo ayaga doorka ugu weyn ugu muhiimsan waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa dhammaan cid kasta oo qayb ka qaadatay soo abaabulida iyo taageerada kulankan. Suldaan Qaamuus oo ka tirsan guddiga amniga ee gobolka iyo Saacadiyo Badal Diirshe oo ah gudoomiyaha gururka haweenka ee degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa bogaadiyay dadaalka ay wadaan madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug. waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliya oo boqolkiiba 80 they can change this country haddii halka dadka wadankan u socday halkaas inay u jeediyaan barnaamijyada face change baan u baahanahay waxaan u baahanahay dawlad dadka u dhalata dadka ka dhalata dadka u taliyo dhalinyaradaas maanta halkaas ka bilowday halganka wuxuu gaari doonaa meesha ugu sareysa raas casayr raas gamoor gaari doonaa aan idin sheegayaa inuu Gaalkacyo ku ekaan doonin halganku ninkii ka naxaya iyo ninkii ku farxaya dhalinyaro soo dhawaada isdhexgalkiinana hore u sii wata kulli dalkan waa in kaga sheekeeyay Suldaan Qaamuus khayr Allah siiyo waxyaalo badan buu idin baray waxaad adigu moodi jirteen baan wanahay waa yartihiin dawlad miina soo arkin dalku inuu kala xirxirnaato u baxay ayaa kulli dad garaadsadaba jiraba in Soomaalidu kala xirxirnaato oo qaybo meel ay deganaato waxaan marka inuu wuxuu idin sheegay Soomaali inay Soomaali tahay in hal madaxweyne aan lahaan jirnay. qaar ka mid ah ardaydii kulanka ka faa'iideystay ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen kulankaasi. dhiigo qulqulayo la isdaadan karin bay dhididkooda sayrsheen waxa si toos ugu socotaa dhalinyarada dhididkooda sayrsheen inaan dhimano diideen ka dhindhiya dhibaatada dib wixiina soo maray dhufaysyadii qodnaa iyo dhoobadii iyo dhagxantii wadadan la dhigi jiray madasha ka dheedisay dhexda marada ku xirto isdaarsaday dhamaantood inaan dhinac la sheegtiyo dhanka midig anaa dega dhanka bidix adaa iska leh oo Puntland iyo Galmudug loo kala sheego dhanka bidix adaa iska leh dhaqankooda ma aha dhaarba iska mariyeen laakiin saariga nagu soo laalaafta markasta hal waa anaguna dhahan dadkana dhahan waxa weeye labada gidde ee Gaalkacyo waxaan rajeynayaa in maalin dambe aan joojino labada gidde oo Gaalkacyo oo aan iska dayno gadiga Puntland ee Galmudug oo aan Gaalkacyo waa hal mid oo dhaho degmada Gaalkacyo. ugu dambeyntii waxa kulanka soo xiray duqa degmada Gaalkacyo ee Galmudug Xirsi Yuusuf Barre iyadoo markii uu kulanku soo dhamaaday kulan ciyaareed isdhexgal ah loo qabtay dhalinyarada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug kaasi oo lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee Cawaale. aad iyo aad baan shirkan iyo abaabulkiisii uga mahadcelinayaa Gaalkacyo waxaan leeyahay sheekooyin badan qosol badan baa laga sameeyaa Soomaalida dadka ugu badan gobolada ugu badan oo sheekooyinkooda qosolkan laga sameeyo waa halkan weey maxay tahay sababtaasi waa dad furfuran wadada ay u sahlan tahay inay maaragtay wixii maskaxda ku soo dhacay isla markaaba ayagoo aan baaritaan marsiin oo jasuuro la marsiin inay soo tuuraan. Axmed Jaamac Cilmi Axmed Caana wararka warbaahinta SBC Gaalkacyo.